السلام عليكم ardayda casharka wuxuu la xiriira ama la socda casharkii ugu dambeeyay aan soo geliyay waxaana ka hadlaynay mindset adoo mindset haddaad si fiican u fahmin waa hab fikirka maskaxiyan qofka uu wax u aamino ama uga fikiro ama u muujiyo dareenkiisa gudaha asagoo adeegsanaya body language ama luqadda jirka asagoo adeegsanaya ayaa mindset la dhahaa mindsetkaas ayaan ka soo hadlaynay waxaana u qaybinay ilaa 4 nooc oo ah mindsetka iyo dadka leh mindsetkaas ama qaab fikireedkaas ayaan ka soo hadalnay mindsetkii ayaan weli daba soconaa sababta u doortayna waa very important waaye waana mowduuc aad muhiim u ah waxaan ugu talagalay ardaydeeda inaan ku wacyigeliyo maadaama aan ku arkay mindsetkooda inuu qaldan yahay especially waxaan rabaa inaan uga hadlo fix mindsetka so marka casharkan waxaa la yiraahdaa how to change fixed mindset to growth how to change fixed mindset to growth mindset so sidii loo bedelo fixed mindsetka oo aan ka soo hadalnay casharkii ugu dambeeyay oo ah maskax ama hab fikireed maskaxiyeed oo taagan iyo to growth iyo hab fikireed hab fikir maskaxeed oo koritaan iyo kobac la xiriira ama rabo inuu sameeyo haddaba sidee marka loo bedeli karaa baan rabnaa inaan ka hadalno anigoo marka dul istaagayo fix mindsetka iyo waxay tahay hore waxaan usoo sheegnay fix mindsetka waa qof maskaxiyan aaminsan ama fikirkiisu yahay in waxba aanan la bedeli karin ama arin waxba laga bedeli karin wax walbana loo daayo siday yihiin maadaama hab fikirkiisa iyo waxyaabaha uu ka rumaysan ama ka aaminsan yahay arin ama shay ay tahay mid taagan oonan rabin in wax laga bedelo tusaale ahaan oo kale markaad dukaan tagtid waxaa waaye waxaa lagu sheegayaa shaygan pricekiisa waa fixed haddii lagu yiraahdo that means no bargaining waxba lagama bedeli karo haddaba marka maskaxdaada hadday fix tahay waxaa weeye ma rabtid in aad wax ka bedeshid waxa aaminsan tahay ama wax walbo waxaa u aragtaa sidooda in loo daayo ama ay ahaadaan baad rabtaa so marka anigana waxaan rabaa in fix mindsetkaas kaasoo kaxeeyo aan ku keeno growth mindsetka oo ah in wax walbo wax laga bedeli karo tusaale ahaan oo kale awoodaha alla ku siiyo kugu manaystay in aad u isticmaali kartid dadaal fara badan kadib in aad wax ku horumarin kartid ama wax ku qabsan kartid oo wax walba sidooda loo dhaafay tusaale ahaan oo kale markii wax la baranayo ardayda way kala duwan qof walba si wax u bartaa qofba si fudud oo degdeg wax ku barta qofna wuxuu u baahan yahay inuu aad u dadaalo ku celceliyo sida wixii casharkii uu fahmo oo imtixaankan ugu guuleyso so marka qofka mindsetkan qabo waxaa weeye mar rabo dadaal inuu sameeyo wuxuu sameeyaa self protection waxa la yiraahdo wuu isxiraa maskaxdiisa quful buu ku xiraa asaga mar walba wuxuu raadiyaa safe side buu raadiyaa wuxuu ka fogaadaa caqabadaha wuxuu ka fogaadaa khaladaadka wuxuu ka fogaadaa guuldarrada wuxuu isku xiraa difaac adag oo ah in mar walbaba aysan wax soo gaarin haddaba maxaa fix mindsetka ma wax lagu dhashaa oo is it naturally born trait miya mise waa wax la barto aniga waxaan ku leeyahay fix mindsetka ma ahan wax lagu dhasho oo ilaahay kugu dhaliyo ma ahan laakiin wax la barto maskaxdaada aad bartid waa haddaba hadday tahay wax maskaxiyan la barto ama maskaxdaada aad ku programmisid ama u sheegtid oo baratid maxaa sababi karo oo koos garayn karo in aad baratid ama maskaxdaada aad ka dhigtid ama hab fikirkaada uu noqdo fix maxaa sababi kara number 1 waxaa sababi kara upbringingka habka lagu soo koriyay ama koriimadaada ayaa saameyn ku noqon karta ama saameyn ku yeelata in aad develop garaysid fixed mindsetka haddaba sidee koriimadaada ugu saameyn kartaa
in aad yeelatay fixed mindsetka. Number one, tusaale ahaan oo kale qofka ama ilmaha markay leeyihiin xaafadda ama guriga joogaan haddii zaid loo ammaano oo la yiraahdo adiga waa caqli badan tahay, hiba ilaahay ku siiyey, wax walba si fiican baa u samaysaa, waxba khalad ma samaysid, waad wanaagsan tahay, ammaanta laga badbadiyo, qofkii wuxuu xiranayaa difaac oo ah mar walba caqligiisa iyo ammaantaas la ammaanay in wax walba u suuragelinayso oo wax walbana bilaa dadaal uu u qabsoomi karaan buu aaminayaa, uu rumaysnaanaya. Fikirkaas halkaas uu kasoo bilaabaya oo fixed mindsetka ah. Sidoo kale qofka ilmaha markay reeri haddii mar walba lagu yiraahdo markay qalad sameeyaan la ciqaabo, mar walba lagu qaaliyo, mar walba yiraahdo waa khaldantahay, mar walba waa khaldantaa, kan waa la ciqaabo oo lagu cambaareeyo, lagu caabiyo qaladkiisa, iyadana waxay saameyn yeeshaa inuu isxiro, difaac xirto, uu ka fogaado wax walba qaladka uu ku sameyn karo ama qaladkii u keeni karto bilaa dadaal, iyadoona loo sheegaynin khaladaadka in wax laga barto oo mistakeskan ay ka caawinayaan noloshaada inaad ku hormariso. Saameyntaas ayaa waxay sababtaa inuu qofka fixed mindsetkaas uu ku koro. Haddaba midda kale waxaa weeye schooling systemka, waxbarashada nidaamka loo sameeyey. Of course waddan kasta wuxuu leeyahay waxbarasho system, waxbarasho ayuu leeyahay, nidaam waxbarasho. Nidaamkaas waxbarasho ayaa waxay sababtaa in ardayda iskuulaadka kasoo aflaxa fixed mindsetkaas iyana samaystaan. Sidee ku samaysan karaan ama sidee ku saameyn kartaa waxaa weeye iskuulka marka systemkiisa waxaa u degsan performance, waxa la yiraahdo habkii uu qofka ardayga uu ku guuleysan lahaa ayay samaystaan. Su'aalooyin oo waxbarashada casharka la baray ayaa la diyaariyaa imtixaanaadka markii la sameynayo. Su'aalahaas jawaabta marka ayaga ugu talagaleen oo u diyaariyeen oo saxda ardayga ku guuleysta, ardaygaas waa arday guuleystay baa loo arkaa. Halka kan dadaalayo oo qaabab kale inuu su'aasha uga jawaabo rabana loo sheego inuu damiin yahay ama uunan waxba garanaynin, lagu shaabadeeyo ama lagu cambaareeyo. Sababtaas ayaa waxay sababtaa in ardaygii uu noqdo arday damiin ah, damiinnimona asaga isku shaabadeeyo maadaama dadaalkiisii ama isku daygiisii loo aqoonsan waayey, nidaamka iskuulkana uusan aqoonsanaynin. Marka ardaygii wuxuu xirtaa difaac ah, aniga liguma talagelin maadadaas inaan ku guuleysto ama waan ku xumahay maadadaas inaan aniga aan ku baas gareeyo ama imtixaanka mar walba ku dhacayo. There's no reason aniga marka aan u dadaalo si imtixaanka u guuleysto ma jirto, sababtoo ani mar walba waxa ii qoran failure inaan dhacaya ii qoran. Marka wax dadaal ma sameynayso, safe side buu istaagayaa, wuxuuna xiranayaa difaac oo maskaxda u xirna ama wuxuu iska dhaadhicinaa inuu damiin yahay oo ilaahay buu qoran inuu imtixaan ku guuleysto, laga fiican yahay arday kale oo clever ay jiraan. Systemka iskuulka ayaana marka saameyn ku yeelato in uu qofku uu samaysto fixed mindset. Waa ardayda iskuulaadka kasoo baxeen, waa kuwa aniga hadda ardaydeeda qaar ka mid ay sameeyaan. Sidoo kale waxaa sabab u noqda in uu qofka fixed mindset develop gareeyo waxaa ka mid ah past failures. Su'aal ahaan oo kale waad guuldareysatay, business ayaa furtay, businesskii way guuleysan weyday, waad guuldareysatay, bedelka isku day lahayd qaabab kale iyo nidaamin kale ama dad kale inta la tashatid si kale wax u sameyn lahayd, waa isdhiibaysaa. Waxaad leedahay aniga liguma talagelin businesska, kuma fiicni, dad iiga fiican baa jiraan, waxaas iyo waxaas aniga ma sameyn kari, haliga daayo. waaba iska daynaysaaba, isku day dhan ma sameynaysid. Maskaxdii self protection aa galaysaa, waa isdifaacaysaa, waxaa leedahay bas waa ilaahay iima qorinba, qadartii ma ahayn in aniga businesskan ku guuleysto, waa dhacay, halkaasay ku ekaanaysaa. Sidoo kale waxaa sabab u noqda in fixed mindsetka yeelatid waa social comparison. Bulshada ama guryaha kale xaafadaha familiyada way ka dhacdaa qoysaska
in caruurta la isbarbar dhigo oo la yiraahdo hebel baa ka fiican hebel uu mar walba imtixaanka ku guuleystaa meel walba uu kaaga fiican quraanka uu bartaa wax walba uu ku fiican sportsku ku fiican wax walba uu ku fiican adiga waxa ku fiicanta ma jirto markii qofka lagu yiraahdo lagu soo celceliyo wuxuu aaminayaa asaga in loo qorinba guusha guul darada ay u qoran tahay halkaas ayuuna fix mindset ku ka soo qaadanaya ama u develop gareynaya sidoo kale socially bulshada dhexdeeda markuu ku jirana waxaa la leeyahay hebel daraadu shaqo bilaabay 150 guri uu dhistay 20 caruur uu leeyahay waa kaas adna meesha adiga taagan tahay waxba ma qaban kartid soo markii qofkan wuxuu iska dhaadhicinayaa ability-giisa ama awoodaha Ilaahay siiyay inaysan ku jirin guul ama inuu wax qabsado soo warka uu isxirayaa waxba isku madayay wuxuu leeyahay aniga liima qadarin ima qorno inaan aniga 25 caruur aan dhalo 150 guri aan helo ma ii qorno soo marka there's no reason aniga aan hebel oo kale u noqonayo hebel uu iga fiican yahayo of course waxa waaye waa u qoran tahay Ilaahay waa ugu talagalay laakiin maxaa laga rabaa dadaalkii uu qofka iska xiraa fix mindset-ka marka waxa waa albaabadu wuxuu xirnaa dadaalka sidoo kale cambaareynta ama judgment-iga qofka mar walba la iska xukumayo ama lagu cambaareynaa khaladaadka uu sameynayo lagu ceebeynayo ina saameyn ay ku yeelataa qofkan inuu develop gareeyo fix mindset-ka marka haddaba inta sharaxaada oo waxyaabaha koos gareeya in qofka uu fix mindset-ka sameeyo markaan ku soo koobo waxa u gudbeynaa sidee marka fix mindset-ka sidee u bedeli karnaa oo uga dhigi karnaa growth mindset maskax ha fikir rumaysan ama aaminsan in maskaxda la kobciyo aragtida la kobciyo wax walba dadaal lagu kaabo awoodaha Ilaahay ku siiyay nimcooyinka alla ku siiyay in dadaal ku kabtid si adiga horumarka rajaynayso ama rabtid u gaartid sidee marka aan ku gaareyna heerkaas ayaa raba ardaydeeda inaan u sheego waxyaabahan ayaana naga caawinay number 1 waxa naga caawinay notice marka hore ogow waxaan adiga mar walba aad ka aaminsan tahay in aad koriimo ama horumar sameysid horta marka hore ogow awareness samee halkan self awareness ka soo galayso in adiga is ogtaa ciladahaada waxa ku fiicanta waxaadan ku fiicnaa meelaha aad ku dhacay imtixaanaadka subjectada aad ku dhacay iyo subjecta ku gulay waa inaad iska warhaysaa halkan iska warhayntii ama isgarashadii ayaa soo galayso awareness waay marka hore is ogow adiga maxaa ku fiicanta maxaadan ku fiicneen sidee wax u horumarin kartaa sidoo kale waxaad sameyn kartaa write a note intaas markaa ogaatid waa notice gareynaysaa awareness sameynaysaa inaad iska warhaysid write a note waxaa sameynaysaa inaad qortid ciladahaada ama waxyaabaha u baahan inaad horumarisid ayaa sameyn kartaa sidoo kale add yet baa ku daraysaa fix mindset-ka qofka aaminsan waxaa weeye waa qof I cannot change I cannot learn I cannot do qofka dhaha aaminsan waa ma sameyn kari ma awoodi ma yeeli kari waxaasuu dhaa soo marka waxaa rabaa in aad ku darti yet weli I cannot speak English language لكن I can learning waa inaad ku dartaa waxaa weeye weli kuma hadli karo sidii la rabay ama sidii si fiican Englishka uguma hadli karo laakiin I can still learning process oo ku jira waan baranayaa dan marka aan barto si fiican u barto waan ku hadli doonaa waa yet inaan ku darso weli waaye kuma hadli kari hadda weli kuma hadli kari si fiican laakiin waan baranayaa alright number 2 waxa way redefine failure horta waa in failure-ka guul darada waxa ka aaminsan tahay ama saa u aragtay waa in horta aad dib u milicsataayo aad dib macnaheeda aad ugu laabataa failure-ka ma ahan guul darada ma ahan in nolosha meeshaas ay ku ekaato ama wax walba halkaas ay ku ma ahan stopping point ma aha meeshaas wax walba inay ku dhamaadaan ama ku egtaa ma ahan waxa weeye waxaa isweydiinaysaa su'aal waxaa leedahay what can I learn maxaa baran karaa waa guul daraystay of course waa sax laakiin maxaan ka baran karaa guul daradaas businesskan aan bilaaway waa ku khasaaray waa guul daraystay laakiin maxaan ka baran karaa cashar ah in guul daradan ayna igu soo noqonin oo guuleysto oo horumar gaaro maxaan ka baran karaa cashar sidaas waa inaa u aragtaa
midoo kale focus on efforts strategy iyo progress waa inaad maskaxdaada ku jeedisaa dadaal effort strategy qaabicin iyo progress oo horumar ah sideed ku sameynaysaa not giving up easily waa inaad si fudud isu dhiibin sidoo kale different approach waa inay sameysaa meelo kala duwan wax ka fiirisaa qaabab kala duwan wax u eegtaa dhinac nidaamyo kale wax soo martaa improvements waa inaa horumar ku dadaashaa since last time tusaale ahaan oo kale imtixaan baa ku dhacday imtixaankii markaa ku dhacday sanadkii hore 30 baa keentay boqolkii ama taamkii hore taamkaana waxaa keentay 50 20% ayaa horumarisay since last time businesskayga waa khasaaray intaas 60% baa khasaaray laakiin markii improvement aan sameeyay waxaa ii soo noqotay 10% camal baa ii soo laabatay waa horumar next time sidoo kale 20% 30% sidaas u soconaysaa horumar ayaa sameynaysaa alright number 5 waxaa waaye be willing to be a beginner mar walba adiga waa inaad ahaataa oo niyadaada gashataa in aad noqotid qof hadda bilow ah inaad isku aragtaa waaye niyad ahaan waa inaad isku aragtaa qof bilow ah wax walba hadda bilow u yihiin ku cusub waa inaad isku aragtaa sidaas markaad isku aragtid waxaa sameynaysaa you practice more wax badan ayaa wixii ku celcelinaysaa and then waxaa sameynaysaa you try new things waxyaaba cusubna waa isku dayaysaa iyo xal cusub oo problemyada markaas ku haysta aad ku xalinaysid ayaa isku dayaysaa right number 6 waxaa waaye replace judgment with curiosity isxukunka aad naftaada xukumayso ood leedahay aniga waxaas kuma fiicni aniga waxaa liima qadarin aniga waxaa ma sameyn karo aad leedahay waa inaad ku bedeshaa curiosity waa xiiso dheeraad oo dadaal dheeraad ah oo wax ku baranaysid waa inaad la timaadaa maxaa sameynaysaa waxaa isweydiinaysaa su-aal ah how can I improve sidee aniga nafteyda xaaladeyda aan ku horumarin karaa oo sidee hadda tahay oo wax uga bedeli karaa oo horumar iyo guul aan ku gaari karaa no verdicts adigoona wax xukun ah aad sameyneynin ayaa sidaas aad leedahay sidoo kale number 7 waxaa waaye you seek feedback waxaa waaye dadka kale ayaad ama dad aad ku kalsoonta asxaabtaada familkaada ayaa waxaad ka weydiinaysaa xaaladaada jawaab celin bay ku siinayaan wixii aad ku wanaagsan tahay wixii hagaajisay wixii aad ku xumaatay then feedbackaas marka heshid you act on it sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa wax uga qaban tusaalahaan oo kale meeshaas marka hawshaas waxaas qabanay sidaasaas waa degdegto kale ama go-aan degdega qaadatay oo lagu yiri markii lagu sheegay waa in aad use the feedback as a tool waa in aad u isticmaashaa aalad aad wax ku sameyn karto ku bedeli karto jawaab celintaas aad heshay ka heshay dadka kale waa in wax u isticmaali karto in isbedel ku sameysid sidoo kale number 8 oo ah meesha ugu dambaysa waxaa way expect setbacks waxaa way waa dib u dhacyo caqabado waxyaabo marka howl sameynay sidoo kale waxyaabaha ka hor istaagi kara ama ka hor imaan kara caqabada ah ayaa la yiraahdaa soo mar walba inaad filataa dib u dhacyo ama caqabad howl kasta aad qabanaysa caqabad bay leedahay dib u dhac bay leedahay waa inaad mar walba filataa oo filashadaas ay kugu jirtaa soo maxaa sameynaya you notice waad ogaanaysaa reflect dib u milicsanaysaa caqabadihii adjust waad toosinaysaa waa hagaajinaysaa and then try again dib baa usoo bilaabaysaa oo isku dayaysaa mar kale su'aal ahaan howl baa qabatay hawshii waad ku fashilantay haddaa ku fashilantay waxaa weeye horta waa ogaanaysaa maxaa sababay dib u milicsanaysaa wax walba processkii iyo nidaamkii amartay adjust waxa hagaajinaysaa waxba ka bedelaysaa then waa isku dayaysaa mar kale so haddaba waxaa kusoo gabagabeynayaa orahdan leh I may not be good at this waxaa qofka fixed mindset-ka qaba ayaa la rabaa in uu isku sheego uu yiraahdo I may not be good at this waxaa laga yaabaa inaadan arrintan ama hawshan aan ku fiicneen yet wili si fiican uma sameyn karo waxaan ma qaban karo but with efforts laakiin dadaal practice ku celcelin
and learning iyo barasho wax cusub I will improve waa horumarin karaa nafteyda hoosheyda wax walba oo riyadeeda ku saabsan saa u gaaro horumar soo marka oraahdan qofka waa inuu isku sheegaa haddaba fariinta aan gudbinayo waxay tahay ardaydeeda u sheegaya luuqadda markaa baranaysid marka ugu horeyso luuqadda waa baran kartaa ma adka wax walbana dadaal bay ku xiran yihiin laakiin adiga haddaa fix mindset kaas wadatid waxaa waaye luuqadda ma baran kartid laakiin marka aad fix mindset ka soo guurtid oo growth usoo guurtid luuqadda waa baran kartaa wax walbaa baran kartaa so waa inaad kasoo baxdaa I cannot learn oo imaadaa I can learn intaas waa fariinta aan gudbinayo wabillahi tawfiiq